sar oo maxaan saaraa warka saacadiisii saxnida sideed ku ogaatay nama seegana warkooda ka dhageyso radio Hiiraan Weyn wararkii ugu dambeeyay ee ku salaysan xaqiiqada oo dhexdhexaada dhameystiran hufan oo la soo xulay ka dhageyso radio Hiiraan Weyn udub dhexaadka warbaahinta duhur wanaagsan dhageystayaal meel waliba aad joogtaan si waliba maqalka iyagu idin soo gaaray kuna soo dhawaada warka duhurnimo ee Hiiraan Weyn qodobada aad duhurnimadan warka iyaga ku maqli doontaan waxa kamid ah dagaalka Daesh iyo maamulka Puntland oo dad fara badan ka kiciyay ama barakiciyay deegaanadii ay ku noolaayeen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waa markaas ciidamada booliska Soomaaliya oo sheegay in ay markaasi ay diyaar u noqdeen ama u diyaar garoobeen doorasho qof iyo cod ah maamulka Puntland oo sheegay in muddo kooban ay dib ugu soo afjari doonaan dagaalka ay kula jiraan Daesh ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ka fuliyay isla markaana gaadiid iyo shabaab markaasi lagu dilay sida la sheegay dibaddana waxaad ku maqli doontaan Hamas oo war ka soo saartay dagaal waa markaasi sii deynta la haystayaal Israa'iil ah soo gudbinta warkan waxa idin suura galiyay shirkadda isgaarsiinta Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba mar kale duhurnimo wanaagsan dhageystayaal waa Jimco 14ka bisha 2 ee Febraayo sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan waxaana idin warami doona Cabdiraxmaan Macallin Muuse aynu ku bilownaa in ka badan 10,000 oo qoys ayaa ka barakacday deegaano ay ku dagaalameen ciidamada maamulka Puntland iyo Daesh warbixinta warkani waxa soo koobaya wariyahayaga Muuse Cali Xarow dagaal u dhaxeeya ciidamada maamulka Puntland iyo kooxda Daesh ayaa ka socda buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari ayaa sababay in ka badan 10,000 oo qoys inay ka barakacaan maamulka Puntland ayaa ku eedeeyay ururka Daesh inuu geystay iyadoo kooxdu ay ku howlan tahay falal waxyeello u geysanaya dadka rayidka ah ee ku nool deegaanadaasi Daesh waxay ka tirsan tahay ururada hubeysan ee la dagaalamaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo tan maamulka Puntland iyadoo sabab u noqotay burbur iyo xasilooni darro Puntland ayaa sheegtay in dadka barakacay haatan ku jiraan deegaano kale oo nabad ah oo hoostaga gobolka Bari laakiin xaaladahooda nololeed ay aad u liidato wasiirka xogeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka Puntland Axmed Siciid Qolombi ayaa sheegay in dadkaasi aysan haatan cunno ku filan aysan haysanin inkastoo dadaalo lagu guda jiro sidoo kale xaaladaha caafimaad iyo biyo la'aan ayaa halkaasi ka taagan si kastaba ha ahaatee waxaa jira eedeymo ka dhan ah dawladda federaalka Soomaaliya ay u jeedisay dawladda Puntland oo la xiriira dagaalka ka dhanka ah
Puntland iyo Daacish. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta Puntland ayaa ku eedeysay dowladda federaalka Soomaaliya inay ka gaabisay taageerada ay siinayso maamulka Puntland gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah Daacish. Waxaa sidoo kale lagu eedeeyay inay ka yareysatay kelmadda ay Puntland ka rabtay dhinaca gargaarka iyadoo xukuumadda federaalka Soomaaliya aysan si buuxda uga qayb qaadanin dagaalka gurmadka iyo amniga Puntland ay u baahan tahay. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu eedeeyay inay si degdeg ah uga jawaabin xaaladda amni ee ka taagan gobolka Bari, taasi oo ka dhalatay joogitaanka kooxda Daacish. Tani waxay abuurtay dareen in maamulka Puntland uu keligii wajahayo dhibaatada iyadoo aan la helin taageero waafi ah ee ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Inkastoo Puntland iyo dowladda federaalka ay yihiin dhinacyo ka tirsan dowladda dhexe ee Soomaaliya, haddana waxaa jiro khilaafyo iyo kala duwanaansho ku saabsan qaababka loo maareynayo xaaladaha amni iyo gurmadka dalka. Puntland oo ah maamulka ugu xooggan ee ka jira waqooyiga Soomaaliya ayaa dareen ku muujinaya in dowladda federaalka Soomaaliya aysan si ku filan u taageerin dadaalada ay Puntland ku wado dagaalka ka hortagga Daacishka. Si kastaba ha ahaatee, gargaarka ayaa ka kooban heer deegaan iyo heer gobol, iyadoo Puntland ay ku baaqday in dowladda federaalka Soomaaliya ay kaalin muuqata ka qaadato si loo taageero maamulka loona yareeyo dhibaatada ka dhalan karta dagaalka ka socda iyo barakaca. Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo kan maamulka Puntland ayaa saameyn ku yeelan kara dagaalka Daacish lagu cirib tirayo maadaama iskaashi dhab ah iyo taageero buuxda loona baahan yahay. Waxaa looga baahan yahay dowladda federaalka Soomaaliya inay si degdeg ah u taageerto Puntland oo ay ka qayb qaadato qorsheynta amniga, gargaarka iyo la dagaalanka kooxda Daacish. Dagaalka wadajirka ah ee labada dhinac ayaa muhiim u ah in laga guuleysto cirib tirada Daacish iyo sidii xaaladda guud ee gobolka lagu xaqiijin lahaa. aad u mahadsan yahay Muuse Cali Xero oo warbixinta warkaasi inala socodsiinay. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in natiijada baaritaanada shidaalka ah ee la heli doono bisha Ramadaan ee ay maalmo ay ka harsan yihiin. Warbixinta warkani waxaa soo koobaya wariyahayaga Mustafa Cali Cadow. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay dadaallo kala duwan ay ku bixinaysaa sidii dalkani looga soo saari lahaa shidaal. Wasaaradda Batroolka ee Macdanta dowladda federaalka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxay wadaa dadaallo kala duwan oo arrintaasi la xiriira. Gudoomiyaha hay'adda Batroolka Soomaaliya ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in bisha Ramadaan inta aysan dhammaanin ka hor rajo weyn ay ka qabaan in baarista shidaalka dalkeena laba baloog oo haatan shaqadooda la wado la soo gabagabeeyo. Sida uu sheegay gudoomiyaha, waxa uu sheegay in dadaaladani ay markaasi iska kaashanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale khubaro kala duwan oo ka socda dowladda Turkiga. horta waxaa nasiib wanaaga hadda waxaa la yiraahdo productionka sahanka inta la sameeyay hadda oo daatooyinka la urushay 50% waay. 50% kaas laba jeer ayaan kala dirnay daatada oo waxaan u dirnay Ankara, qaybna waxa lagu sameeyay markabka dushiisa. marka hadda marka productionku wuxuu marayaa 50% ayuu maraa. marka waa garan kartaa maasha Allah hadda bishaan aan ku jirno November markii laga bilaabo kowdeedii ilaa haddeertaan yani 37 waxaan dhihi lahaa 37 kilomitir square ayuu maalintii sameynaa. weli ma dhicintaas. marka waxa way hadda badiyaa si fiican u degan bishan February waxaan rajaynaynaa si xawliga ku socotaan hadda haddii marka inta u dhaxaysa 45 iyo 32 intaas hadduu ku hayo productionka waxaan jecelnahay inaan complete gareyno labadan blog ilaahay hadduu yiraahdo markii Ramadaanka dabayaqadiisa marka la gaaro waa complete gareynayna ilaahay idinka. aad buu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow warbixinta warkaasi inala socodsiinay. markana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa howlgallo waxa ay gaadiid kaga furatay ururka Al-Shabaab. faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan howlgallo qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor ay saacadihii la soo dhaafay ay ka fuliyeen gobolka Shabeellaha Hoose. howlgalkani oo ay fuliyeen ururka 157aad ee guutada 17aad ee Gorgor iyo markaasi ururka waa markaasi 146aad ee guutada 14 Oktoobar ayaa waxaa si gaar ah looga fuliyay tuulada
loo yaqaano gumaysidiid oo kooxdani ay ku lahayd bar kontarool islamarkaana ay ku xayirnaayeen gaadiid. ciidamadan ayaa waxay ku guuleysteen in ay fasaxaan gaadiidkan iyo dadka shacabka ah ee ku xayirnaa halkaasi, iyada oo la burburiyey dhammaan barihii kontarool ee ururka al-shabaab halkaasi ay ku lahaayeen, kuwaasi oo lacago ay kaga qaadi jireen laguna dhibaateyn jiray sida ay sheegeen saraakiisha horkacaya howlgalkan. gaashaanle sare nuur maxamed gaabow oo ah taliyaha guutada 14 Oktoobar ee ciidamada dhulka xoogga dalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadu ay markaasi cagta mariyeen dhammaan isbaarooyinkii ay kooxdu ay dhigteen halkaasi, kuwaasi oo ay sheegeen in ay ku dhibaateyn jireen gaadiidka iyo dadka masaafurka ah. ma aqbalayno in khawaarij duulaan ku soo qaadaan oo ay dhibaateeyaan bulshada islamarkaana qarannimadeena ay dhibaateeyaan. waxa aan markasta diyaar u nahay in aan kaga daba tagno meel kasta oo ay gabaad ka dhigtaan, ayuu yiri taliye nuur gaabow oo la hadlayay warbaahinta dowladda. sidoo kale waxa uu yiri inta uu howlgalkani socdo waxa libaaxyada qarankeena ee xoogga dalka Soomaaliya si markaasi deyn doona gaadiidka ay shacabku leeyihiin ee ay ururka xayirteen. taliye gaabow ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ay sii socon doonaan howlgallada looga hortagayo dhibaatooyinka kooxdan ay ku hayaan gaadiidka iyo shacabka ee ku safra wadooyinka Shabeellaha Hoose. ururka al-shabaab ayaa weli gacanta ku haya dhul ballaaran oo markaasi bara kontarool oo lagu baaro gaadiidka islamarkaana looga qaado lacago badan, iyada oo gaadiidka isticmaala ay dhibaatooyin badan kala kulmaan sida la sheegay. weli waxaad la socotaan warka duhurnimo. markana maamulka Puntland ayaa sheegay in ay muddo kooban ay kusoo gabagabeyn doonaan dagaalka ay kula jiraan kooxda Daacish. rawda xuseen cali ayaa warbixinta warkani soo koobaysa. wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Caydi Dirir ayaa sheegay in kooxda Daacish ay haatan ku hareen dhul 40 kiiloomitir oo kaliya, iyagoo ciidanka Puntland ay sii ballaarinayaan howlgalka ay ka wadaan goobihii lagula dagaalamay ee Calmiskaad. sidoo kale wasiirka waxa uu xusay in Daacish ay haatan ku sugan tahay dhul buuraley ah oo qiyaastii 15 kiiloomitir ah, isla markaana haddii laga saaro ay ciidanka u gudbi doonaan dhulka bannaan oo suurtagal ka dhigaya in gaadiidka dagaalka loo adeegsado dagaalka. Maxamuud Caydiid waxa uu ballan qaaday in dagaalka lagula jiro Daacish lasoo afjari doono waqti gaaban gudahood, isagoo uu xusay in ciidanka Puntland ay dirbaba guulo la taaban karo ka gaareen dagaalka. dhanka kale wasiirka warfaafinta ee Puntland waxa uu eedeyn u jeediyay dowladda federaalk ee Soomaaliya, isagoo uu ku dhaliilay in hubkii loogu deeqay si loola dagaalamo Daacish ay ku haysato Muqdisho halkii la geyn lahaa goobaha dagaalku ka socdo. waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda ay gabtay doorkii ay ku gaarsiin lahayd hub iyo rasaas meelaha lagula dagaalamayo kooxda Daacish. waxa uu nasiib darro ku tilmaamay in Muqdisho lagu soo koobay hantida iyo kheyraadka shacabka Soomaaliyeed. aad bay mahadsantahay rawda xuseen cali oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaysay. halkaad weli inagala socotaana waa Hiiraan markana dibadda. Xamaas ayaa sheegtay inay ka go'an tahay fulinta heshiiska xabad joojinta Gaza oo ay la gashay Israa'iil, ayna sii wadi doonto sii deynta la haystayaasha, sidoo kalena la qorsheynayo taasi oo sare u qaadaysa rajada laga qabo in dagaalku uusan dib u soo noqon. kadib wadahadallo ka dhacay magaalada Qaahira ee caasimadda waddanka Masar, kooxda hubeysan ee reer Falastiin ee Xamaas waxay sheegtay in dhexdhexaadiyaashu ay ka socda Masar iyo Qatar ay xoojiyeen islamarkaana xaqiijiyeen in ay meesha ka saari doonaan caqabadaha. warbixinta Masar iyo Qatar ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dulduleelada la soo afjaray. afhayeen u hadlayay xukuumadda Israa'iil ayaan ka hadlin wararkan, balse waxa uu sheegay in haddii Xamaas aysan sii dayn 3 qof oo nool sabtida Britolaha ay markaasi ka bixi doonto heshiiska xabad joojinta ah. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa hanjabaatan la mid ah waxa uu sameeyay Talaatadii kadib markii Xamaas ay sheegtay in ay dib u dhigayso sii deynta kadib waxaana ay ku sheegtay xadgudubyo Israa'iil ay ka wado marinka Gaza iyo sidoo kale inay hor istaagtay gaadiid waday guryaha guurguura taasi oo Xamaas ay doonaysay in dib loo soo geliyo marinka Gaza. Xamaas waxay sheegtay in arrintani ay ka mid ahaayeen in ay markaasi ku guuldareysatay in la ogolaado xaddii loogu talagalay oo gargaar bini'aadantinimo ah oo muhiim ah oo ay ku jiraan teendhooyinka iyo sidoo kale
in waa markaasi gaadiidka cagafyada iyo sidoo kale qalabka wax lagu nadiifiyo taasi oo Israa'iil ay beenisay. waxa wararka qaar ay sheegayaan xadka Masar iyo reer Falastiin ay wadaagaan in ay haatan ku sugan yihiin dhammaan gaadiidka kuwaasi oo wadad guryaha gurgura isla markaana haddii ay ogolaato Israa'iil la gulin doono. wararka qaar ayaa la soo tibinayaa in Israa'iil ogolaatay in la soo geliyo qalabkaasi gudaha marinka Gaza. guud ahaan warkii doornimo aad kala socoteen Hiiraan Weyn ayaa intaasi ku idiltan iyo kulanti dambe nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyay ee ka dhaca gudaha dalka iyo dibadda ka dhagayso idaacadda Hiiraan Weyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiranweyn.com ama hiranweyn.net. Radio Hiranweyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxa uu wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barka internetka ee hiranweyn.net ama hiranweyn.com. Al-Rahma Specialist Hospital. guud ahaan arladeena halkii aad ka istaagtay isbitaal wada aragtay ha yeeshee aqoon iyo adeeg caafimaad baa inta la isku dhaafay. Isbitaalka takhasusiga Al-Rahma intii aad u aragto adeegii heshayba aqbasho amaantay sheeway agabkii u dambeeyay dhaqaatiir aamin oo aqoontoodu sareyso isbitaalka Al-Rahma ummaday ku macruuf ah saasa la kofaday ish ala tayadiisa qalabkiisu amaanan bukaankii arkaan aqbalayn meel kaleeto. isbitaalka Al-Rahma waa isbitaalka ugu kalsoonida badan gobolka Hiiraan kuna guuleystay daaweynta iyo qaliimo kuwaasi oo loo fidiyay tiro badan oo bulshada kamid ah waxaana ka howlgala dhaqaatiir wada takhasusi ah oo kamid yahay Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah qabiir caafimaad una adeegaya bulshada